barnaamijkeenan faallo iyo falanqo waxaynu maanta ku faallaynaynaa ama aynu ku falanqaynaynaa kuna baranaynaa magacyadooda iyo wejiyadooda dadka dagaalka ba'an kula jira magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobollada ACC. waxaa ka mid ah Maxamed Kaahin, waxaa ka mid ah Salebaan Gaal, waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle, waxaa ka mid ah Muuse Biixi, waxaa ka mid ah gudoomiyaha Beesha Habar Gidir, waxaa ka mid ah culimo u diinta maamulka Somaliland, waxaa ka mid ah Cabdikariin Guuleed baa ka mid ah. way fara badan yihiin laakiin ashkhaasta aynu hadda ka soo qaadanay ayaa sawirradooda halkan ku arki kartaa. dhammaan dadka aynu halkan sawirradooda ku soo qaadanay waa dadka dagaalada ba'an kula jira deegaamada ACC. Saylici baa ka mid ah, Ismaaciil Cumar Geelle ka mid ah, saan soo sheegnay. dhammaan dadkaasi waxay iska kaashanayaan sidii ay siyaasad ahaan iyo ciidan ahaan military ahaanba ay ula dagaalami lahaayeen maamulka ama deegaanka ACC Khaatumo iyo ka qayb qaadashada ay ama siyaasad kaga qayb qaadanayaan ama ay hub kaga qayb qaadanayaan ama ciidan ahaan ay kaga qayb qaadanayaan dagaalka magaalada Laascaanood ka socda ee dadkii deganaa magaalada lagu barakiciyay, magaalada lagu duminayo, dadka badan lagu leynayo, lagaga hortegayo dadka deegaankaasi waxay ku tashadeen madax dhaqameedkoodii, culimo u diintoodii, dal iyo dibadba dhalinyaradoodii, haweenkoodii go'aankay qaateen ayaa waxaa la rabaa in laga dhigo waxba kama jiraan. waxaad arki doonaa dadyowgaasi waxyaabaha ay isticmaaleen. tusaale ahaan Ismaaciil Cumar Geelle oo kale tallaabada ugu horreysay oo qaaday waxay ahayd in uu shir degdeg ah ku qabto magaalada Muqdisho isagoo isugu keenaya Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo Soomaaliya si deegaamadaas dagaalka ka bilowday loo geliyo liiska argagixisada oo loo yidhaahdo waa argagixiso. markay u suurtageli weydayna waxa uu u wareegay dhanka kale isagoo leh Ismaaciil Cumar Geelle haddaan ahay halla ii wakiisho inaan wada hadal siiyo labada dhinac isdilaya, isaga oo raba in uu deegaamadan ka eexdo oo markuu ku guuleysan waayo inuu argagixiso ku qoro. nin argagixiso raba inuu kugu qoro oo haddana raba in uu dhexdhexaad ka noqdo oo uu leeyahay aniga halla ii wakiisho oo wadamada igad hay wakiishan in aan arrinta xalliyo anigu. arrintaana waa lagu fahmay, Ethiopia iyo wadamo badan baa ku fahmay, waana laga diiday. arrintaas wuu ka tegey, wuxuu ku laabtay Djibouti, waxa uu u diyaar garoobay haddaba inuu ciidan ahaan iyo military ahaan ula dagaalamo. wuxuu siiyey hub iyo taageero military maamulka Somaliland oo uu yidhi xoog ku soo afjar, isaga oo moodayay inay awood leeyihiin oo ay soo afjarayaan maadaama ay 33 sano lahaayeen maamul baanu nahay. dadkan ACC deganna ay dad shacab ahaayeen. wuxuu sawirtay in lagu sii daayo ciidan xoog leh dad shacab ah, laakiin way ku fashilmeen. waxay arkeen magaalooyinka dhan laga qabsaday, Laascaanood oo laga saaray, iyagii oo gooja cadde iyo meel ciriiriya ku jiro oo koonayaasha laga fadhiyo, samcad ahaan fashilmay. international community ha noqoto iyo bulshada Soomaalida waxgaradka ah ay la yaabeen dad deegaan ka soo duulay oo deegaan kale ku duulaya 2023. arrintaas markii ay fashil noqotay, Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu la xiriiray ninka la yiraahdo gacan yarihiisa Xasan Sheekh Maxamuud oo Soomaaliya madaxweyne ugu magacaaban. ninkaas ayuu wuxuu yidhi dhan kale ka wareeg oo meeshan si Soomaaliya oo kale u soo dhexgal. isaguna tallaabo qaaday, wuxuu magacaabay nin aad ugu ololeyn jiray maamulka Somaliland oo Cabdikariin Guuleed la yiraahdo oo ganacsi ku leh deegaankaas Hargeysa, deegaamadan ACC iyo beelahaasna la dagaalansan oo hab qabiil ahaan ula dagaalansan ayuu u magacaabay. haddii uu u magacaabi lahaa nin ergey deegaamadan ACC ka soo jeeda ama dadka la haybta ah uu u magacaabi lahaa oo nin daarood oo kale uu magacaabi lahaa, waxaa la oran lahaa xoogaa macquul oo deegaamadan ACC waxay u arki lahaayeen nin dawladdiina ka socda iyagana mateli kara. laakiin nin ACC-na aan matelin, fikir ahaanna ka soo horjeeda, qabiil ahaanna ula dagaalansan, simbaatiye iyo taageero weynna Somaliland u haya, ganacsina ku leh ayuu u magacaabay oo ay Xasan Sheekh isku beel yihiin. Cabdikariin Guuleed hawshaas markii uu ku dhawaaqay waxaa la yaab noqotay in Muuse Biixi uu soo dhaweeyay, sababtoo ah Muuse Biixi wax kasta oo Soomaaliya ka yimaada wuu ka soo horjeesan jiray, xataa qofkii safar ku maraya wuu qaban jiray oo wuu xiri jiray. laakiin hadda ergey madaxweynaha Soomaaliya soo magacaabay oo haddana Muuse Biixi soo dhaweynayo
وقد قضي بالليل وحا عد إن إسماعيل عمر قيل iyo xasan sheekh maxamuud iyo muuse biixi iyo xulufadoodu ay ka wada hadleen in ninkaas loo soo diro oo indhaha caalamka si looga qariyo deegaamadan dhibaatada ka socota in xasan sheekh uu ergey soo magacaabo kadibna sidaa lagu lugooyo deegaamadan SSC madax dhaqameedka iyo dadka degan waxay cadeeyeen inaanay Somaliland ka mid ahayn laakiin xasan sheekh wuxuu aaminsan yahay in Somaliland ay deegaamadan ka mid yihiin si Somaliland ahaan loo xalliyo gobol Somaliland ka midana ay yihiin dadkaasna ay Somaliland hargeysa laga maamulo fadqala la yaro xoogaa shaqaaqa oo dhacday oo kale inta laga dhigo in la dejiyo arrintan oo markaas Somaliland ay deegaamadeedii calanka buluuga la dejiyo meelaha lagu qoray laga masaxo calanka Somaliland laga taago garaadada iyo dadkan dagaalamaya ciidamadan oo dhan ka baxaan ciidamada gooja cadda ku xareysan soo yimaadaan oo qabsadaan calanka Somaliland laga taago saas xasan sheekh maxamuud ergeyga u magacaabay waxaa la yaab leh gudoomiyaha beesha habargidir oo isaguna soo dhaweeyay sheegayna in federaalka dhabta ahiba uu fiicnaan lahaa in koonfur iyo waqooyi laga dhigo oo federaalkan kale oo dhan laga takhaluso bal ila dhageyso gudoomiyahaas oo isaguna hadlaya dowladda Soomaaliya waxay u magacaawday ergey gaara asagana anaguna waa soo dhaweynaynaa inuu maaragtay arrinta loo magacaabay wada hadalka sida ka maqlayo wada hadalka Soomaaliya Somaliland ayaa ergeygaas loo magacaabay asagana waa soo dhaweynaynaa wixii uu qaban karo uu qaban doonaa asagana Allah uu u fududayaan leenahay waan ku mahadsan yahay madaxweyne Muuse Biixi inuu soo dhaweeyo aad iyo aad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq xasan sheekh maxamuud wuu soo magacaabay cabdikariin guuleed xilka loo soo magacaabay gudoomiyaha beesha habargidir wuu soo dhaweeyay muuse biixi wuu soo dhaweeyay gadaalla waxaa ka riixaya ninka la yiraahdo ismaaciil cumar geelle waxaa iyaduna la yaab leh saylici oo isagana loo diray suu ciidan uga soo ururiyo gobolka awdal oo intuu tagay yidhi reer booromow dagaalka ka qayb gala reer laascaanowdana dagaalka joojiya waxaa la yaab leh inuu beeshiisana ugu baaqo inay dagaal ka qayb qaadato oo duusho oo intay galbeedka Soomaaliya ka timaado ay bariga Soomaaliya intay timaado ay dadka jooga la dagaalanto dadkii magaalada laascaanood u dhashayna wuxuu leeyahay isdifaacina ee dagaalka joojiya marka runtii waa ayaan daro macnaha waa madax wixii laga xishoon jiray sameynaya madaxweynihii Soomaaliya oo midnimadii Soomaaliya la dagaalamaya saylici oo beeshiisa la dagaal gala beelihii kalena la dagaalka joojiya muuse biixi oo soo dhaweynaya Soomaaliya ergey ay soo magacaawday isagoo oo wax kasto Soomaaliya ka yimaada diidi jiray waxyaabaha soo dhan waxyaabaha la yaab kale ismaaciil cumar geelle oo hub iyo saanad iyo taageero military Somaliland siinaya si ay u leyso beelo kale oo Soomaaliyeed oo dhulkooda u qabsato waxyaabaha soo dhani waxyaabaha ay darrada bal haddana waxaad ila dhageysataa gudoomiyaha beesha habargidir oo leh federaalka dhabta ah la raba in la sameeyo waa waqooyi iyo koonfur federaal noqda looma baahnaba federaalka hadda jira federaalka lagu sheegayo waxaa noqon kara Somaliland iyo Soomaaliya marka waxa weeye waxa lagu qanci karaa federaal rasmiya inay yeeshaan oo ay ka dhaxeeyaan lacagaha iyo ciidanka iyo baasaboor ayaa la rabaa inuu ka dhaxeeyo waxyaabaha inta badan u kala duwanaadaan marka waxaan leeyahay midnimadaas in ay Somaliland lagu qarxiyo dhibaatada soo dhacdana hadda Soomaalidu waxay tiraahdaa Somaliland waxyaabaha inaga qarsoon ee aan rabo inaan idinla wadaago waxaa ka mid ah in muuse biixi uu afduuban yahay laba nin oo ka mid ah siyaasiyiinta maamulka Somaliland waa Salbangaal iyo Maxamed Kaahin Salbangaal iyo Maxamed Kaahin waxay afduub ku haystaan muuse biixi afduub siyaasadeed muuse biixi laftiisu dana ayuu ka leeyahay dagaalkan labadaas nin ee aan soo magacaabay Salbangaal iyo Maxamed Kaahin ujeedadoodu waxa weeye in si beel ahaana ay u dagaalamaan iyaga oo maamulka Somaliland ku dhex dhuumanaya oo ay la dagaalamaan beelaha degan SSC degan ay la dagaalamaan sababta ku kalifaysa dagaalo hore qabaa'ilada ka dhaxeeyay miya duruufo kale oo ku kalifaya miya ma garan karno runtii waxaa ka mid ah oo aan soo dhaafay meesha inaan magacaabo in culimo u diinta maamulka Somaliland ay iyaga laftoodu ay ka qayb qaadanayaan dagaalka oo mid ka mid ah ayaa wuxuu ku tilmaamay in ay yihiin dadka degan gobolada SSC ama magaalada Laascaanood dadka degani inay la mid yihiin kufaarul Quraysh oo kale
markii ay nabiga u diideen xajka inuu galo iyaga oo ku metelaya in dadkaas ay kufaaro Quraysh yihiin oo sidii loola macaamilay in loola macaamilo tabtaas ayaa nin shiikhay yiri waa ninka shiikha sawirka salka idin ka muuqdo maxay ahayd odayga halkaas dhinaciisa fadhiya waxa la yaab leh Muuse Bixi laftiisu ujeedooyinka uu ka leeyahay dagaalkan waxa kamid ah doorashadii lagu kadeeday ee qabo lagu celceliyay si uu uga takhaluso ururadii iyo xisbiyadii iyo wixii la sheegayeen uga saabto in uu dagaal galo oo marka uu yiraahdo dagaal baan ku jiraa doorasho lama qaban karo marka isaguna wuxuu u arkaa maslaxadiisii inuu kursiga sii joogo Salabangaal iyo ninka la yiraahdo Maxamed Kaahina hab qabiilaysan ayay doonayaan inay ula dagaalamaan beeshooda la dariska marka dadku waxyaabahaas ma arkaan uma muuqato dagaalkan waxyaabaha horinaya dagaalkan ka dhigaya dagaal aan la joojin karin waxa weeye dad ujeedooyin qarsoon leh oo wajiga ay muujinayaan waji aan ahayn uu uga dambeeyo ayaa dagaalkii ku jira sida Salabangaal iyo Maxamed Kaahin oo kale oo ujeedadoodu ay tahay beel inay la dagaalamaan ninka Muuse Bixi oo raba inuu kursiga sii joogo oo kale Ismaaciil Cumar Geelo oo isagu ujeedooyin kale isaguna leh oo dagaal kula jira beelaha qaar Soomaaliya kamid ah ninka la yiraahdo Xasan Sheekh oo isaga laftiisu dagaalka in Cumar Geelo ku jira oo isagoo waji dawladeed muujinaya haddana dagaal ku jira ina guuleed oo isaga qadhiisu ninka la yiraahdo Cabdikariin Guuleed oo isaga laftiisu saa u dhaqmaya marka wajiyo badan baa qarsoon oo gadaalna ka soo bixi doona. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi